بسم الله الرحمن الرحيم وحلقتين لبعض هي مقالكي أن كويش كيناني طبعاً حيوان جرا أنا ربع سنين إن جران سيدان هروش أجي مقالك وحن كسر ترجمي كارك الله يقانو برايستايل وحين ما أنت كبلا بدنا حيوان كاللحاد وحيوان كاللحاد مارك جوت وحيكون كران حيوان كان يلح فيت iyo 18 سنتيمتر oo madaxa ilaa minjaha waxa cabsida li waxa weeye geesiyadu waxay leekaadaan 5 ilaa iyo bad feet ama 1 iyo bad mitir salafka kaliya waxay u isticmaalaan markay dhidiga saaranayaan labku waxay isticmaalaan geesaha iyo waxyaabaha la mid ah markay dhidiga kala ceshanayaan ama ay saaranayaan geesaha dhidigu waxay koraan iyaguna 10 inji ama 25 sentimitir waxay cunaan xayawaankani caleenta dooga ubaxa iyo wax la mid ah waxay leeyihiin geesa dhaadheer sida maqaal kaga muuqata ku daawatay oo geesa dhaadheer bay leeyihiin xayawaanka ku xiga toddobaad waa xayawaanka loo yaqaan raccoon dog uu cuf badan yahay waana ayga qayb kamid ah inta badan waxa laga helaa waqooyiga America aydina waxay u egyihiin yeeyda ama daawada markay isriimanayaan ee dhasho dhalto way wada koriyaan markay dhasho way wada koriyaan markay caloosha ku sidana dhidigu meel buu inta badan fadhiyaa labkuna isaga ayaa u keena cuntada iyo waaxyada iyo wixii la mid ah u baahan yihiin isaga ayaa xanaanaya waxa laga yaabaa inay rumeerkooda raccoon dog isu abuur gaar weeyaan codkoodu waa cajiib waayda ku ugu khatarsan cod waxay leeyihiin marka kuwan naqaanay Soomaali ahaan ka duwan oo marka cajiiba xayawaanka sideedaad waa xayawaanka loo yaqaan blue footed booby waa shimbiro cajiib oo indhaha qabanaya haddii aad booqatid jasiiradda Galapagos ayaad ku arkaysaa marka jasiiradaha ay ku badan yihiin way duulaan wayna dabaashaan inta badan way isku duuban yihiin bariga inta badan ma soo baxaan laakiin jasiiradaha Galapagos iyo kuwa ay inta badan ku nool yihiin blue footed booby waana kuwa muuqaalka ka daawanayso ee isku eeg iskuna dhowdhow xayawaanka sagaalaad waa ka loo yaqaan Malaya Kalugo indhahoodu waxay u muuqdaan sidii wax laga naxo sad maqaalka qaar aragto indho waxay leeyihiin inaad soo baxsan yihiin aad moodo oo waaweyn ma duulaan iyagu iyo way duushaa waa wax la isku haysto laakiin waxa been cad ah ma duusho waxa la ogaaday way duulaan waxay leeyihiin marka qanjir weyn oo balaaran oo kala baxo sida weyno ay leeyihiin wayna duulaan waxay ku nool yihiin geedaha dushooda sidii duulinka ama geedka loo yaqaan dheelooyahanka ee ka dulbaxa geedaha sidaas oo kale ay iyaguna ugu dul nool yihiin geedaha iyo wixii la mid ah wayna duulaan qaar baa leh ma duulaan laakiin waa been weey way duulaan xayawaanka tobnaad oo dambeeya waa Venezuelan Bournemouth xayawaanka waxaa la ogaaday sanadkii 2009 waqti dhow ay ahayd waxaa laga helay dalka Venezuela oo dal kulayla inta badan waxa laga helaa kulaylaha dhogor badan ay leeyihiin dhogorta badan ayaa u saamaxaysa inay ku noolaadaan dhulka kulaylaha waxayna jecel yihiin udgoonka meelaha urta wanaagsan leh deegaanka nabdoon iyo deegaanada soo jiidashada leh ayay jecel yihiin marka xayawaankan wax badan laga yaqaan maadaama waqti dhow la ogaaday waa xayawaan adduunyada ku cusub wax badan laga aqoonin intaas ayaan kusoo koobanaa muuqaalkeenii iskugu jiray labada xalqadood aynu kaga warramanay 10 xayawaan ee adduunka ku nool aad rumaysanaya intaan barnaamijka ku koobmayno sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh